kale saarada oo ka bilownay inuu ku jino haykiisa say waa tuljin insa ila بدون أن ذاتك ويا المهم ومرمان منه maanta oo kale waxaynu door bidnay markii hal maalin ugu yaraan inuu ka sheekeysano duruus oo ku saabsan maxaa la yidhaahdaa cibaadadka khatan darada ayaynu marayn hadda waayahay waxyaabaha aynu ka soo sheekeynay oo ku saabsan maxaan ku dhahdaa qubayskii aynu maraynay iyo looga qabaysto jinaad waxaynu ka soo sheekeysanay qubayskii waxaynu ka sheekeynay inaan shardi looga dhigin inay timahooda furfaan xantooba biyo ah ama ilaa 3 jir biyihii laga dhergiyo oo biyihii ay taabtaan gunta hoose ee timaha laakiin inay tidicii ay timuhu tidcanaayeen inay furfaan maaragtay waa kaga duwan yihiin ragga ama ragga maadaama aanay asal ahayn inay timaha tidcadaan oo safarada iyo ayay saxaabadu ridwanullaahi calayhim way tima dheeraayeen inagu kan ahaan Soomaalida ninku hadduu timaha dabto dhaqan ahaan ceeb baynu naqaan laakiin saxaabadu ridwanullaahi calayhim markay timahooduna ay dheer yihiin timuhu marna madaxa yani waxay gaadh marka dhagtay timahoodu ahaayeen way jari jireen marna dhagta iyo garabka hoostiisa ayay timuhu gaadhi jireen oo waxay ahaayeen marna waxay ahaayeen jumma ama wafra oo timuhu garabka way ka dhaadhici jireenba marka inay garabka ka dhaadhacaan ama garabka taabtaan ama garabka iyo dhagaa u dhaxeeyaan ama dhagaha ayay ragga timahoodu inta badan afartaba rasuulka waa larka isagoo timihiisa yani jaray oo maartay dhigta uun aanay dhaafin isagoo oo timihiisa ay yihiin limma oo ay hoos u daadegeen iyagoo ay yihiin wafra oo garabka ay ku dhawaadeen iyagoo jumma dhar uu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam afartaba xadiis rasuulka ku soo aroortay sallallahu alayhi wa alihi wasallam waqtiyada safarka kale timahooda ayay way tidci jireen si ay dhaska iyo maartay ay maartay soo yareeyeen iyo maartay marka way intay tidcaan oo ilaa 4 tidci ka dhigaan waaweyn bay ay marka cumaamada ku xidhi jireen sida rasuulka uu yeelay oo kale sallallahu alayhi wasallam fathul makkah ka xal maadaama asalaan inay timaha tidcaan raggu way furayaan laakiin dumarka lama adoonsan inay timaha furfuraano waxa la yiraahdaa waa rafcul xaraj mashaqa shalxa jirta meebano xarajka badan ay dhib yarayso oo dumarku maadaama marba tidcayn sharcigu halka ka khafiifiyay sida gabdhihii yaraaba aynu soo aragnay ilmaha yar dhidiga ah iyo wiilka yar ee muqabka ah markay naaska shaqeynayaan raggu inta badan wiilkii way qaadayaan oo meelahaas marka kaadiisi markuu dadkii ku waa la rushan waa sidan ka oo kale marka jawaab qabahoodii furfuraan laakiin dumarku way furan laana ragga inta badan mashaqo badan ay timaanay ka gaar laakiin dumarka mashaqa gaar وكذلك waxa lamida ilmahan yar ee hadda dhashay 2 jirka ee aan caanaha uun cabay yani wiil walba way qadaysaa oo maartay dadkii buu la yaray oo ninka soo guriga yimaada maartay laakiin gabdhaha yar yar ma qaado dadku mariyana ma haysan gabdhaha yar wax qaan bay oo mariyadaas loo ma haysa oo raggu ma qaadi jirno raggu xilka inta sidatay iyo xilka u dhaxeeya martay jabay laakiin wiilkan yar sardafaya dad dhamay qaadayaan mashaqa ayaa ku sugnaaday qof walba ku kaajaya
lidaalika la yidhi wiilka kasi ha rusheeyo mar walba dadkii ku kaajiyaa badane gabartana ha la iska dhaqo leanna gabarta inta badan cid qaadaysaa ma jirto marka waa meelaha shareecadu ay khafiifisay meel walba mashaqada ku jirta oo xarajka ummadda nebi maxamed laga dulqaday calaa kulli xaal marka waxyaabahaas oo kale ayaynu hore usoo aragnay in maaratay ilaahay maaratay loo kala duway waxaa kamida waxyaabaha aynu soo aragnay dahaarada in dumarku ay kaga duwan yihiin ama ragga iyo dumarkaba yanihi kaadidu inta badan ay ka timaado leeyahay nijaasa waxyaabaha nijaasta ah ee inta badan laga istijoodo inay ka timaado daloolka kaadida ragga iyo dumarkaba oo waxyaabaha qoyaanka ruduubada xubinta tankee dumarka waxyaabahan kale ee qoyaanka ka yimaada ama discharge-ka ah ee raxmkooda ka yimaada inaan haba yaraata aanay nijaas ahayn baynu hore usoo maaratay rajaxnay oo maxaan ku dhahdaa maaratay ragguna waa lamid oo wixii aan kaga iman maaratay maxaa la idhahdaa aan ahayn wadi ama madihdaa xukunka kaadida waxaynu hore oo ninku markuu reerkiisao kale la ciyaarayo isagoon aan insamaynin haddii qoyaan uu ku arko maxaan ku dhahdaa afkiisa hore xubintiisa taranka waa inuu iska istijoodaa kana dhaqaa ila muu samaynin jimaaca qoyan yarna uu ku arkay kaasoo kale madiiba baa la idhahdaa waa nijaas leanna wuxuu ka yimaadaa qanjir la yidhahdo prostrate oo kaadiduna soo marto ama mani rasmiga ah oo maxaan ku dhahdaa meel ka timaada muxuu dhahdaa kaadihaysta waayarka ka yimaada xubinta taraga ragga yimaada iyo waayarka ka yimaada maxaa la idhahdaa wasidaha ragga ka yimaada sida timaada kaadihaysta ka timaada iyo meesha ilma ku iyo aan isku darin marka waxyaabaha rasuulkana sal alay slam manidiisa way jibtay iyadoo qalalan haddii qoyanlooma dhiqi jirin haddii iyadoo ku qalashay uu rasuulku arko oo maaratay riyoolka maaratay riyooday oo kale ama nin kastoo riyooda haddaad ku aragto macnaha maradaada biyihii ragga ka yimi waa in laga jejebiyaa uno ciddida maarata yani mar lidalika wixii ka yimaada ragga manisdaha ka yimaada dariiqiisa nijaas maaha lakin wixii ka yimaada dariiqa kaadida waa nijaas dumarkuna waa saasi lego dumarka wixii ay isku arkaan ee ruduubada farjiga ee hadduu doono matalan dumar markay uurka leeyihin waxa laga yaaba qoyaano badan inay isku arkaan oo aan khusaynin kaadidii iyo dariiqiisii waxaasoo dhamay marka iyana waxaynu hore urajaxnay inaanay nijaas ahayn ee ay maaratay iska caadi tahay ayaynu hore usoo rajaxnay marka labada dariiqna waa inaynu saa aynuu kala garanaa waxaa laga reebayaa oo dumarka arrinta ka hadhaya waktiga ay leeyihiin